lacag ayay kaa doorbiday marnaba isma aanan dheheenin danta iyo duruufaha aad ku nooshahay ayay kaaga tegi doontaa habeen iyo dharaar walba iyo waqti walba oo qurux badan waxaan juhdi iyo dadaal ku bixi jiray sidaan ayada ku heli lahaa waxaan mar walba ku fakari jiray sidii guur tayo leh aan ugu dhigi lahaa ficeedna ugu jabi lahaa laakiin intaasi in ka badan ayada oo maanka ku heesa ayay iga doorbiday nin Yurub ka imaaday inay aroosto markii aan maqlay arooskeeda inuu dhacay qalbigayga aad ayuu u jabay aad ayaan u murugooday qisadaas ayaa idiin soo gudbinayaa oo mid ka mid ah saaxiibada ku xiran barteeda YouTube-ka Socdaal 24 oo noo soo gudbiyay Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Maxamed wuxuu ahaa wiil aad u qurux badan inkastoo xaaladaha iyo dantii duruufta uu ku noolaa aan laga dareemi jirin Maxamed waxa uu si firi ah ku dhiganay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii maamulka uu gudbiyay xaaladda uu ku nool yahay Maxamed iskuulka inta uu dhiganay waxa uu si joogto ah kaalinta koowaad ugu galay fasalka 8aad ilaa iyo form 4 markii uu dhameeyay aad ayuuna u dadaali jiray oo wax aan waxbarashada ahayn ma uusan qabi jirin hamigiisu waxa uu ahaa xaaladda ay ku nool yihiin walaalihiisa ka yaryar iyo faamilkiisa mar uun inuu ka bixiyo Maxamed iskuulka asaga oo dhiganayo ayuu waxa uu arkay gabar lagu magacaabo Rayaan aad iyo aad ayuuna ugu helay Rayaan waxay ahayd gabar aad u ladan oo qoyskeeda hantiilayaal ay yihiin suuqa weyn ee Bakaaraha ayayna waxa ay ku lahaayeen goobo ganacsi oo aad u fara badan iskuulka Rayaan markay imaanayso waxa lagu keeni jiray baabuur marka ay baxaysana waxa lagu celi jiray baabuur oo waa xuural cayn oo socodka tirada badan ayaa laga ilaalinayay inay daasho qoyskeeda Rayaan aad ayay u ilaali jiray dhanka haasaawahana aad ayay ugu ilaali jiray maadaama gabadhooda ay ahayd gabar hantiila ah Maxamed asaga oo danta iyo duruufta ciilka uu haayo ay mar qora Rayaan waxa ay dhahdo waan ku jeclahay inta badan waxa dhacdo haasaawaha ama xiriirka jacaylka marka laga hadlayo labada qof markii qof hantiilo uu yahay qofna danta duruufta ay heeso in xiriirka sidii loo baahnaa uusan u dhici doonin Rayaan haddii Maxamed uu soo wacay hadduu soo xiriiriyo labadooda waxa ay isku ahayd mid iska caadi ah maxaa yeelay waxa ay mar walba rag ugu faani jirtay inaysan u baahneen rag oo ay u baahan tahay nin hantiila ah maadaama qoyskeeda ay ka soo jeeday ay yihiin hantiilayaal Rayaan Maxamed waxa ay la jilaysay jacayl been ah mar walbana aad ayay ugu dhool cadii jirtay erey aad u macaan ayay dhihi jirtay Rayaan iyo Maxamed waa maskiin maqana joogo quruxdii Rayaan markuu arkay in daraadar ayaa ku dhacay Maxamed iyo Rayaan muddo markay isla socdeen xiriirkoodina meel qurux badan oo marayay Maxamed waa maskiin oo waxba ma ogo sheekadu halka ay ka socotay iyo halka ay u socoto war kama haayo iskuulka markuu joogo danta ayaa lagu wataa oo imtixaanka iyo su'aalaha halka ka imaanayaan inuu ugu shaqeeyo halkaas ayaan ku soo afmeerayaa anigu waan jeclaay qisadii xanuunka badneed muddo ayaan wada soconay nin Yurub ka imaada ayay iga doorbiday jacayl haddaad lacag haysato waa guul haddaad lacag haysana waa guul daro alla xanuun badana noloshu waxa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaad ka daawaneyseen barta YouTube-ka Socdaal 24 kunki wax yar ayaa nooga dhiman adiga daawanaya muuqaalkan ayaan na gaarsii karo